heshiisyada maalgashi ee Soomaaliland la galaysa caalamka door uguma banaana Soomaaliya waa xubinta ku saabsantay faaladeena warku dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyo tusaale midna uguma baahna xukuumadda Soomaaliya oo calanka u sida dalalka guuldareystay caalamka oo 28 sanadood tahli weyday inay xukunkeeda wada gaadhsiiso magaalada Muqdisho caasimadda waa yandaro inay ku riyoodaan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo rubuc qarni ka hor ay kala baxeen Soomaaliland oo dawladnimadeeda ay ku noolaanayso u soo gashay halgan qiimo culus ugu fadhiya danka malaha hadallada laablakaca ah ee ka soo yeeray siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta xukuumadda aan iskeed isku maamuli karin ee Soomaaliya waxaa la yaab leh in madaxweynihii hore ee dawladda Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay shalay in Soomaaliya loo soo bandhigo heshiiska maalgashi ee lagu ballaarinayo marsada berbera ee ay wada galeen shirkadda DP World iyo xukuumadda Soomaaliland waxaase uu qiray in muddada uu xilkaasi hayay aanu arag isla markaasna waxba kala soconin heshiiskii ay Soomaaliland la gashay shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP World mowqifka xukuumadda iyo shacabka Soomaaliland waa mid cad oo ah in aanay Soomaaliya waxba uga cabin heshiisyada maalgashi iyo kuwa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliland la galayso dalalka iyo shirkadaha ganacsiga ee caalamka waxaana la gudboon Xasan Sheekh iyo qayrkiiba inay calooshooda ka jaraan Somaliland kana waantoobaan hadallada aan waxba ka soo qaadka lahayn ee ay la daba socdaan Somaliland heshiisyada Somaliland la gasho dalalka adduunku maaha qaar ay Soomaaliya kaalin uga bannaan tahay waxaana xukuumadda Muqdisho hor yaalla in ay ku filnaato ugu yaraan ammaanka madaxtooyada Muqdisho oo ciidamo shisheeya ku ilaaliyaan Xasan Sheekh waxay ahayd inuu cashar ka barto in Soomaaliya ay soo mareen ilaa 1991 toddoba madaxweyne oo isagu ka mid ahaa kuwaasoo dhammaantood Somaliland sheeganayay balse qiiradoodii ku wajahneed Somaliland u gudhay sida xumbada oo kale kuwa maanta Soomaaliya taladeeda ku magacaabanayna ay ku fashilmi doonaan dhagaraha ay Somaliland u soo maleegayaan geesta kalena waxa hadalka Xasan Sheekh uu marag u yahay dawladda Somaliland oo faqiya fagaaraba hore uga sheegtay in aanay Soomaaliya xataa dhageysta ka ahayn heshiiskii casriyeenta marsada berbera oo ay ku baxayso dhaqaale gaadhaya 442 milyan oo dollar iyadoo fadhi ku dirirka qaarkii ay sheegi jireen in dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud inay u ogolayd heshiiska DP World ugu dambeyn Somaliland waqti iskama luminayso inay ku mashquulso hadallada alwaaga ah ee ka soo yeedhaya Soomaaliya oo siyaasiyiintoodu waxa kaliya ee ay ka midaysan yihiin tahay cadaawadda ay u hayaan Jamhuuriyadda Somaliland sidaas darteed Soomaaliya waxa hor yaala inay beelahdeeda ka soo dhalaasho inta ay ku fikirayaan colaadda ay u hayaan Somaliland faaladii warkuna waa naga intaasi faaladii warkana waxaa soo diyaarisay wakaaladda wararka Somaliland ee Solla waana qalinkii Cumar Maxamed Faarax